diidan dhacdada doorashooyinka waxaana lagu weydiyay adiga naftiga sidii xisbiga aad ka tirsanaan lagu weydinayay Soomaaliya fikirkaas iyo qoraalkaaga oo qortay wuxuu dhacay bismillahir rahmaanir rahiim hadad leedahay Soomaaliya bal lagu weeday la yaab maayde madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maanta jooga doorashadii markuu ku jiray ku eedeynay xisbiga kale ee wadani anigu wadani mas'uuliyad kama hayo taageeraan waa wali muddadii ugu dambeysay intii hore dhan kulmiyana xilligii campaign-ka wali dabeeqadiisi ayaa lagu qasbay inaan raaco iyadoo lagu eedeynay wadani mowqif ay qaateen oo Soomaaliyeed aan buligay ma arag hadaan ka soo horjeednay hadaan ka mid ahaynba kan igu eedeeyay aniga Soomaaliyeed wuxuu la mid yahay kaawun waliga Soomaaliyeed ma taageerin dagaalka Soomaaliya Hargeysa ka dhacay kamaan bixin oo waan ka soo horjeeday maanta marna ma taageerin arintan hadda dhacdayna ciidanka markasta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne kasta oo joogan mucaaradkooda maxaafad ahaan dagaalka ciidankeena qaranku haduu dagaal galo waxa waajib qaran ah in la barbar istaago laakiin arinta meesha taalo waxa ahayd maraan Facebook ku qoray intaan arkay dad badan oo leh dagaalkan annaga kaayagi ma aha cidii federaal nagu eedeysay adigu dagaalka gal ayaan dabeedna qoray qormo yaraan la yaab hadii dalku dagaal galo waxa qasab inagu inaan dawladda barbar istaagno dabeedna kiiba dadkii comment gareynayay oo badan iga hor yimaadeen halka waxaan ka gartay in wali aan la dhayn dildilaaci ka yimid doorashada dabeedna shalay waxaan qoray editorial yar oo aan leeyahay madaxweyne waad ka gaabisay dhaydii dildilaaci aad sheegtay ka dhashay doorashooyinka marka intaas uu daaraa inaan ku baraarujiyo madaxweynaha in waxa dadku tabanayaan uu dhameystiro ka hor intaynan dagaal gelinba intaas ahayd مستمع عبد الشيء عبد الشيء طبعا انا بدي نقول وطني وقت واحده حساسيه وحنا ما مقبرت سؤال بشي ما مقبري انا قبل بكره عندي قال لهاين أنت هذا المعرض هذا بعارس هذا أرد الواحد أروح على واحد كله كله أنت وضرب كبرت والله هذا قفكي أنا حرب وياه مركز سياسة وكتر أنا قوي اسمع عسيلنا ولا جو قصبي واللي مركز اللي قاعد يحلك وحلي جوا ذي إن نودنا عاد طيب نحن كلا دارتي يعني جو عن ولي جي ودنا ميل قرشين وحن كلا دارتي أنا نقطة سياسة عم صنع معرضي أنا حلك اللي قاعد أول نودنا حتى نسكامس إن أنت تصو إن أنا هاي المبدأ يصير صلبا لأن مركان أركي وحلي سوالف ورقم ما ميلان لجربين إن ده الله مصير عبء سوالف ترى ميلان لجربين إن نشوفه وإلى نقوم يده إن قرصنا بدي سماعي قصة تاسم كراعي ودني بان قراي تاجر أنا وها يمكن ما تاجر سنة قارب واركيا إن شيء وهذا يا ملا مدحون ودوني أنا وحلو كم بعني مسبح مسؤولية ده أولي بحنا مسنة إنه مجعب ضدك لا صدقت مل هي عيد ودنيا ويا الملي وعن كل عزنا مدحوينا إنه ضدك حزب جيسادس لكن حزب جيس ضدك هذا بلا سمال إنه بملاككم نعين هذا لو كلا بته إن ضدك مسؤولية الدولة نمد بها يعني قرن كديفتي سؤال وذليه مرة قرن كديفتي زين لو ضيع شو oo dad ka wada muuqdaan waa taataan doonay laakiin Mustafahan ama Sheenahan ma ahi waxaan u hadlay waxa weey waa baraarujin iyo toosin u baahday nacayba ma ahayn laba kulmiya jira waa kulmiye hore xukuumadda madaxweynaha iyo tan madaxweyne Muuse Biixi teeba ku kirifsan waddan ku beertay wallahi anigu mar rabay ma inaan markaan qorayo ama ka hadlayo maraan diyaar u ahay inaan ka hadlay noqonaysa laakiin kulliba marka mas'uuliyadda lahayd xisbi ayaan geedaynay xisbigan madaxweynaha kula baroon buka ninkii ugu horeeyay ugu eedeeyay siyaasadii xisbiga ka hortimid waa isagoo ka hortaagnaa sida nimanka loo eedeynay reerka ka soo jeedo reeray iyaga kamid ah isagoo eed iyo dagaal kula jira ayuu aniga ii tiriin aan iyaga ka raacsanahay mas'uuliyadii aan hayay gobolkaan ahayd inaan dhex ka noqdo wax gobolka ka jiray wuxuuna u arkay isagoo marka dadkii kale ama taageerayaashii wadan ee dhinaca kale inaan ka raacay way istaag weyd arinta marka mar dambe ay xil munaasab tahay oo aanay dadku wax kala tabanayn ayaan aad uga hadli doonaa laakiin marka hadaan ka hadlo waxa laga yaabaa inaan dhaawac jira si ballaariyo aniguna marka ma doonaytaan maqaalka qorto ku hadlay madaxweynaha wali booga dhacayaan ama inta rakaantaan رسمنا العصم سبيعة الوقت حلو يا ماما تكون كل ما فتح ليش أصلا راقد في الوقت جاي ولا أراك عمرنا حلا أراك عدل كيف مر هدي ودقائق وصي الصعدة بينه قرن كي سمال الحدود لو ذكروا للدفاع ده عمر دم بيتشو كان ضد كان لليه فترة باتين هدي قرن كي دقال دق دقوا قال مدحون واحد قرن كي يجوهر يلا قرن يا بويدي قرن كي سينا ولي وحسيك الغيبي من الحمام ذين
marka hadee inaan toosiyo iraado madaxweyne weli dadkaagu way kala hadee jirto lixno kala la magacaabay wasiira la magacaabay sayid noqoto marka weli qalankii madaxweyne Muuse Biixi ma noqon mid dadka mataaneeyo walaalay taasan ku تمايا أنا قصاص عن كويري هذا قصاص دون طولك لكن وحاول ولي سيدي الفيلي ده كأنه قنعان بيت فرق سامل تصالان مدحوين السيرة وكوجو لست دورشة سامعين ده دقيقتين كي سووه ري واحد نقدر متعد ولا بكون قنعان تام كلات ما يقدر على تين عدة ليلة سا تمويلي ده تكون ما قنعان مدة لبعض مدحوين السيرة دورشة وكوجو لست ما يجرين حنف إيرت دورشة دي الجلي ويصير نظيفة أو ترتمي وحقبت بالله قلي لكن تنريني ما لو قلي qabyaalad baa lagu galay jeegan baa lagu galay dad baa la eeday federaal lagu eeday dhaawac bay ka tagtay uu qirsay madaxweynuhu isaga calaamisaarkii ka yiri dhaawacii ay keentay waan dhaya taa ma jirtaa ratiyatan loo doonay taa weeynu dhayo okay Mustafa Abdi Shiine aan su'aal ku weydiin lahaa xukuumadii soo kala dambeeyay Soomaaliland soo marxalad bad soo qabatay xukuumadii kulmiye mudane siraayo xukuumadii dabeeqadii markii si dhacay salaxilka laga qaaday hadda madaxweynaha waxa Muuse Biixi إنما مرتشينيسا إنه حلبنا صابناه مركب سو مقعو. قد مدحونا قلك السجالة لكن أنا وحنا كل شيء حنا مبدئيا مدحونا وحنا كلنا لا إن رجل لا صار أنت حزبي جيسان وحزبي يسوى كتير إنه كواسي حل ما هينو عندك النوية هذا كي معارض كان. لكن ما كواسي أنا مسنا. هذه لو هو عارف كقرن كنا نحكي ذي كرو. تبغى قصب يقول قصب أنا واي مسؤول وحنا هاي دل كان كتير سن مسؤولية كسر أنت موادنا. هذه لو عارف كنا نحيل كجودة كرو. وهو عارف لكن وحنا كلنا لا نيجي صوت دورنا. والركبة قبل كره حلالك ودعنا وحزبي جيس كترسل أنا حزبي وكمية رمات كلني ما صدقني